السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنبيشيدان وتا إن شاء الله دالاديدا بيه suuqa aadanaya waa sii sheekaysanayna gurigay gadaashiisan ka adeeganaya insha Allah dambiishana waa sii qaadaynaa inta aan howl qabsanayo isoo raaca insha Allah waxaa la isoo baray Soomaaliya markaan joogay afkana ka hadal gacmahana ka shaqayso yaa afka ka hadal gacmahana ka shaqayso hayehe marka wixii lagugu soo abaabiyo waa ku soconaysaa insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalahay waa idin wada salaamay see layahay magacayga Yaasmiin waaye kusoo dhawow caafimaad fiican meeshana miraka guraya guriga gadaashiisa dhinaceeda marka soo baxa walaalayaal maal id fartiin ala ii dhaafay video waxaan soo saaray caruurtaada sida aad u korsan kartid oo ku saabsan hooyooyinkeena marka fartiinta la ii dhaafaa waxay ahayd abba Yaasmiin waanadaada waa qaadanay ka waran haddii aabba uu ilmaha korinayo ee hooyana joogin marka horeeto situation yaasha qof walba wixii haysto ilaaha u korto hooyooyin waxaa jiran sariir saaran hooyooyin waxaa jiraan ku qasban inay shaqeeyaan ani Soomaali markaan joogo oo yaraa oo ku dhashay 16 sano la igu soo koriyay 16 sano markaan jiraan ka soo tagay waxaan xasuustaa hooyooyin suuqay fariisanayaan bacad la u furan meel dhara u furan cuntay gadaan adduun dhan hooyooyin waxaa jira shaqeyn jireen alxamdulillah waana wax ka fiican ma jiraan hooyooyinka markay shaqaysanayaan gurigoodana ay u shaqaysanayaan ay howlahaasna qabsanayaan because annaka muslimna nahay business maasha Allah waxaan u leenahay xigma wisdom aan u leenahay mogtahay maasha Allah tabaarakallah marka hooyooyinka haddii ku qasban inay shaqeeyaan aabihiina ku qasban yahay in uu asagana shaqeeyo ay iscaawiyaan laakiin maanta videoyahan wuxuu ku saabsan yahay aabaha caruurta haya hooyadana ay ka warqabeynin sida aniga aan u fahansanahay su'aasha hadda ka hore waxaa jiray gobol aan degnaan jiray Soomaalida ku badneed maasha Allah tabaarakallah aroosana la wacay arooskii aan tagnay bas wiilaa soo galay xaaskiisa wataa waxa waaye family yar oo cusub yihiin guurka u jeedaa hal cunug yaray wataan ada cunug 4 sano camale bas ay soo galeen wiilka u jeedaa gabadhu xaaskiisa u dhawaanaya gacantu cunugiisa ka haya inkastoo arooskaas ilmo iimo lagu jirin because ilmo ilaga martaqaadeen dadka waaweyn oo ahaa habeenka waqti damboona ahaa marka waxaan u jeedaa wiilka xaaskiisu markasta hore inuu soo qabto way soo gashay arooska jaakatin yar iyo cambuur yar mees goona waxbay wadataa markaas jaakad intay dhigtay ay dhaxda tagtay heesa Soomaaliya la shiday ay deeshe uu soo qabana uu soo celina uu soo qabana markaas waxaan leeyahay see camal meeshan see wax u jiraan mariyaan soo gur waa karinooya mujeedino raspberry jam aan ka sameynaya insha Allah raspberries waa wariyaan kugu daalinine waxaan xasuustaa gabadhi waxay rabtaa inay meesha ka dhex dheesho marka gobolkan deganahay Soomaali iyo bani aadan meel ay joogaan ba iyo adduun dheene warkii dhaca waa maqlaysaa mogtahay markaas waxa la wiilka iyo gabadhi saas arooska habeenka joogeen way isdagaalsan yihiin way isdagaalooyaan oo buuqa ka jiro see camal waay waxa buuq ka dhex jira gabadhi waxay rabtaa gobol alla ama Minnesota ama Chicago waa wadamada America meelada dhexdeeda aroos duu jiro Canada meel alla meeshii aboodo waxa la arooskay rabtaa party iyo aroos iyo inay ku dhex jirto heer waxay gaartay gurigeeda in uu ka halaabo wiilka wuxuu yiri aniga waa shaqeeyaa cunugana waa haya mana isku hayn karo mana sameyn karo yiri ilaa qofkii hadduu subaxii wiilka shaqada aado galabta ka soo noqdo cunugii waa in la sii hayo cunuga 4 sano jiro iskoolkii subaxii inta u dirto galabta kama imaanayo mogtahay sanadkiisa 5 sano 6 sano inuu soo gaaro waa على كل حال هدي إنه جيران شكلها صح إذا kugu qaybsanaya
waxaa waay tusaale ahaan gurigaaga iyo aroos iyo baarti iyo wax la tacaleesh anaka reexamarkeena dhahnaa reexamaraa la igu soo koriya la tacaleesh waxaan waxba ahayn gurigaaga iyo kaaga dhumin shaqayso ninkaaga hadduu kuu soo shaqaynayo gurigaagan ijaar lagaa bixinayo dad qaarkood saas isa ka fiican loo sameeyaa jirto cuntadaadana aad karsanaysid walaalay xamdi walaalay ku xamdi aan ku leeyahay baarti iyo cambuur hebel iyo dirac hebel iyo boorso weyn ee jiide kabo waaweyn ee jiide dirac weyn ee jiide ilaah weyn oo waaxid ah marka waxaas iska dhig haddaa tahay gabadhii ninkeeda usoo hoyanayo dadkaas aan la hadlooya maanta dadka kaleeto xaas laheena xaas qeyr qaba allah u sahla aamiin yaa rabbi marka waxaa ani taladeeda ah gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhahaa markasta guryaheena Soomaaliyeed furitaanka ha ka yaraado sidoo uga yaraan karaa annaka gabdhaheena waxaan nahay maasha Allah root ay dhahan root waxa waa geedka meesha ka baxayo hoostiisa xididada lama aragtay camalana gabdhihii Soomaaliyeed gurigeena anaga isku hayno walaalaheen anaga isku hayno caruurta anaga hayno dariska anaga hayno maasha Allah tabaarakallah istabaabashayso dirac yar hadii lagu gado dhaqo waxaaga ilaah ajirkeeda ka siinay kolba anaga aqare inaan u shaqaysana waay marka waa inaan joojino aroos hebel inta ka jirninka guriga looga soo tagay insaan jidkii dhibaato iyo balaa ku qabsan habeenkii 8 9 saac habeenimo aroos laga imaana ala wareega ninka guriga jiifa ilmeen guriga jiifaan waxaas iska ilaaliya hadda ka hor taa booq wax ka dhaceena la sheegay gabdha aroos iyo habeen barka imaadeen 10 saac 12 saac salaad subax ala nikina madaxa furansaan madaxa waa soo furan jirnay laakiin in laga weynaado waay wax kasta waa in laga tooba keeno gabdhaheena Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay ku qabsaan ku dhiirigelinayaa guriyeena aan dhaqano nimankeena aan dhaqano diracyadeena haday duqoobin aan dhaqano aan jafano marka aan isla wadno hoosha ilmaha yaa laga ordin hooyada waa waxa muhiimka oo guriga hayso yaa lagu booteynin ninka waa inuu 50-50 noqdano ninka waa inuu guriga ka shaqeeyo naagta inuu guriga ka shaqeyso waxaan jaceelka markuu jiro ala isla qaban karaa marka guriyeena aan jaceyl ku abuurno walaalahay ilmaheena yaan ku ordin yes aabaha ku qasban yahay inuu xaaska caawiyo laakiin waa inuu farxad ku sameyn karo ma aan hooyada inay wareegayso guriga ku soo noqonaaga guriga ka jibin walaashii cadeey walaalay video tamas absiya jazakallah walaalaha malabkeena raadinayo waa kana Carmel Mall 221 abay faano dukaankeeda ka helaysaa Minnesota ma sha Allah waa 221 second floor Carmel Mall